asalaamu calaykum. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo suuqa cryptocurrency bitcoin ma lagu kala yaacay mise weli rajaad jirta iyo faa'iido miyaa weli laga heli karaa. saa halkan uga jeedaan bitcoin qiimaheeda aad ayuu hoos ugu dhacay. maanta waxay maraysaa 22,300 hadda in la hadlayo, weliba way ka hoos martay 22,200 ayay gaartay. ethereum oo ujeedaan ayadan 1,200 bay maraysaa. kuwa kalena warkooda daa aad ayay hoos ugu dhaceen. bitcoin qiimaha ay maanta marayso waxa ugu dambeysay 2020 ayaa ugu dambeysay 2 sano ka hor inay qiimaha maanta marayso ay soo gaarto. qiimo dhacan aad u weyn oo suuqa ku dhacay, dad badan ayay waxay ku abuurtay cabsi iyo walwal, iyo dad badan dabcan lacagtooda waa loos gareeyeen, waa waayeen. waxay ku xiran tahay coinka aad haysatay. coinka weyn hadaa haystay badan intooda badan haddii aad iibin weli wax ka khasaaray ma jiraan. siba bitcoin oo kale aad haystid oo aad gadinin aad sell garaynin weli wax ka khasaaray ma lahan. laakiin haddaad qiimahan ku gatay awalma qiimo hore kusoo gadatay 40-50 kuna kusoo gadatay oo maanta iibisid, dabcan minus badan baa ayaa ku jirtaa. marka waxyaalo badan baa keenay oo waxaa kamid a sida la sheegayo oo ugu weyn waxaa dhacday Luna coin la dhihi jira ayaa wadhawta suuq aad macnaa saabeyn weyn ku samaysay oo bitcoin badan bay haystay oo sell ku samaysay, iyo coinkii oo dhan baa hawada ka baxay oo qiimihiisa dhul ku dhacay. waxaa kaloo iyadana maalmihii ugu dambeysay soo baxay Celsius mid la dhaho oo wadadii martay Luna kaleeto iyadana bitcoin badan haysay suuq kusoo daayeen. waxaas dhan waxa usii dheer suuqa waxa la dhaho sicir bararka iyo qiimo dhaca dhaqaalaha adduunka oo dhan ku yimid oo adduunka dhan hadda la leeyahay waxaa laga cabsi qabaa in dib loogu noqdo 2008 recessionkii ama dhaqaale xumadii dhacday iyo mid ka daranba. ilaahay waxaan ka baryaynaa wixii shar oo dhan in laga qabto iyo dhaqaale xumada iyo balaayada la sheegay dhan dhinac naga mariyo, laakiin in laga taxadaro isha lagu hayo waa wax muhiima. marka aan suuqa aad fiirsaan kaliya ma ahan suuqa cryptocurrency waxa dhacay, suuqa kale oo stock market-kana waa ujeedaan hadda waa kan kala Saudi Aramco ayaa ugu sareysa market cap-ka si la leeyahay. wajida hadda soddonkii beri aragtaan graafkooda kulli inta badan 90% waa wada red oo hoos ayuu socday qiimahooda. marka stock waa dhacsan yahay, wax walba waa dhacsan yihiin. crypto kaliya ma waxa hoos u dhacay, dhinac walba waa dhacsan tahay. dhaqaalaha meelo badan oo la maal gashan jiro dhan waa dhacsan yihiin. guryihii iyo propertieski wixii dhan cirkaas ay marayaan, inflationkii cirkaas u maraya. haddii aad ogtahay cuntadii iyo wax walbana waa qaaliyoobeen. suuqyadani dhacaan waxaa keenay koronihii dhacay iyo suuqii isu socodkii suuqoo xidhmay iyo dagaalada jira waxaas dhan. laakiin ani waxaa igala sii daran ama aad u weyn laakiin dadkun aysan dareysanin waxaa kamid ah inflationka. waxaa la dhahaa lacagtii oo inflation ku dhacay ama qiimo dhac ku dhacay. tusaale ahaan kasoo qaad lacagta US dollarka ah, $100 waxaad dhowr sano ku iibsan kartid maanta kuma iibsan kartid. marka lacagta US dollarka waa lacagta adduunka ugu xoog badan oo hadda la isticmaalo. lacagaha kale eurada iyo kaba sii daranba ayaguna iyo poundka iyo kullina waa la wada mid isku wada xiran yihiin. sida qiimo dhac ugu dhacay lacagteena shilin Soomaaliga oo kaleeto hadda oo halka $100 $2 milyan oo $2 milyan oo shilin Soomaali u maray oo kale ama hawada uga baxdo oo kaleeto. waxaa lacagta shilin Soomaaliga dhibaatada u keenay waxay ahayd daabicitaankii la iska daabacay ayaa ugu weynaa factorieska ama dhibaatooyinka ugu weynaa lacagta Soomaaliga inay hawada uga baxdo. waxaa kamid ah lacagta oo la iska daabacay. lacagahan haddii la iska daabaco oo dawladdu ay marmarsiyo kasta ay la timaado ay tiraahdo okay lacagtan daabacaynaa iska daabacaynaa, waxay keenaysaa inaad lacagtii saving ku ahayd oo koon kugu jirtay hadda tusaale ahaan haddaad shaqaysanaysay 20 sano 20 kaas lacag save garanaysay, lacagta save banka kugu jirta lacag save maahan, waa lacag inflation ku socoto oo qiimo dhac ku socdo. marka hadda website-kan noo calculate gareynaya haddaa fiirino $100 haddaad 5 sano ka hor 2018 aad bangiga ku shubatay adoo isdhahay save garee 10% ayaa minus noqonaysaa. tusaale ahaan waxa halkan idin tusinaysaa wixii aad $100 ku iibsan lahayd 5 sano ka hor maanta waxa ku iibsan kartaa waxay joogaan ama ku iibsanaysaa $110. $10 ayaa ku fuushay. marka haddaan wax kale idin tusaale haddaan dhaho tusaale ahaan $100,000 qofkii akoonka ugu jirtay 5 sano kale lacag 10,500 ayuu minus ama noqonayaa ama lacagtaas ka go'aysa. maxaa yeelay $100,000 5 sano ka hor waxay u goysay maanta waxay noqonaysaa $110,500 inay wixii ku gato. marka qofka lacagta haysta ayaa xanuunka dareemi kara. hadda matalan anagoo kale taduus lacag 100,000 akoonka noogu jirinin wax weyn ma dareemaysid oo de 100,000 maanta kusoo gala haddaa isla markiiba isbanagaraysid ayadoo xisaabta kuma jirto. laakiin dad badan oo adduunka geesihiisa kala jooga ama Soomaaliya jooga ayaa lacag $100,000 ka badan meel u taala ama milyan u taala. hadday milyan tahayna $100,000 ayuu minus noqonaya.
marka hadda qofka Soomaaliya jooga oo isdhahaya ama xawaaladahan ama bangiyadan ama shirkadahan lacagta ugu akoonkooda ugu jirto oo u qabo inay lacag meel u taalo oo ay safe u tahay. haddaba waxaan idiin sheegaya lacagteeda safe idima aha. dollarka aan idiin sheegaya haddii sanad meel taalo, sanad walba waxaa kasii dhacaya qiimo ayaa kasii dhacaya. ha u malayn lacagtaada safeka ku ah oo meel kugu jirta inay safe tahay, ma ahan. waxaa ku socda inflation xunba ayaa ku socda oo ay keeneen iska daabacay lacagaha la iska daabacay. lacagta waa lacagta US dollar, waa lacagta ugu adag oo adduunka hadda ka shaqeysa oo lacagahan fiyaadka loo yaqaan ka hadlaya. waa lacagta ugu adan. hadduu qiimo dhacas ku dhacay maxaa moodaa qiimo lacagihii kale oo kaleeto dhan. marka xalku muxuu yahay? xalka ilaah baa og, laakiin aniga waxaan ila muuqataa in xoogga la saaro ama qofkii awoodo u gato bitcoin waa lacagta ugu adag adduunka hadda jirta. marka waxaa isweydiinaysaan hadda suuqan dhacay, dad qaarkood asxaaban leeyahay waxay soo weydiinayaan coinanka hoose maraya ama kuwa yaryar haddaan iibsadana ka waran, ma faa'iido ma leeyihiin? haddaad waxaan tusayaa tusaale ahaan kan waa 2018 coinankaasi u kala sareeyaan waa ujeedeen. waxaa bitcoin cash ayaa kaalinta afraad ku jirtay, EOS ayaa kaalinta shanaad ku jirtay. haddana meesha ku jiraan waa ogtihiin, hoos ayay ku jiraan. neo awe hadda hawada waxay ku jirta aad bay ugu hooseysaa. haddaa fiirsaan boqolka ugu sareeya hadda meeshan 2018 iyo maanta isu fiirisaan kuwa kaloo badan ayaa soo gelaya hadda. marka suuqan xumadan hadda socotaa imisay sii socon doontaa ilaah baa og. ma waxay sii socon doontaa 2 bilood, ma sanad, 2 sano, 3 sano? hadduu sii dheeraado dhowr sano sii socdo, hadda kuwan top 10ka ku jira ama top 100ka ku jira ma kusii jirayaan, kuwo kalaa soo bixi doona. marka ka hadda maal gashatid ma hubtaa dhowr sano kadib inay sii joogayso suuqan ama kaalmaha koowaad kusii jirayaan, ma hubtid. laakiin waxaa la isku hubo waxa weeye inay bitcoin tahay midda 13 sano ugu macnaha hadda soo dambeysay ama 13 sano soo dhaafayba kaalinta koowaad midda ku jirta inay bitcoin tahay, marna ka dhicinin. ethereum ayaa ku xigtay oo labadaba. marka aniga laakiin waxaan sii aaminsanahay in bitcoin ay tahay meesha suuqa ugu muhiimsan oo inflationka iyo wax walba looga carari karo. maxaa yeelay bitcoin cidna iskama daabici karto, waa 21 milyan oo fixida. waa lacag aad u adag, dowladii ma bedeli karto, cid wax ka bedeli karna ma jirto. marka qof walba oo awooda oo aniga nafsadeeda aan ka bilaabo waxaan iskula taliyaa inuu qofku hal bitcoin meel gashto. haddaad awoodid way lacagta haystid, haddii aad awoodin waxaa iibsan kartaa. khasab ma inaad hal bitcoin iibsatid, wixii aad awoodid ayaa iibsan kartaa. waxaa iibsan kartaa $100 ama $1000 ama wixii la u dhigmo kaleeto. marka coinanka kaleeto dhan riskigooda ayaa aad u badanin oo waxaa dhici karta inay 100% minus noqoto hal mar. laakiin midda aad iyo aad lisugu hubo 13 sano lasoo tijaabiyay ugu dambeysay waa bitcoin. xooga saara idinkuna hana la baaro. laakiin coinanka kale waxay ku fiican yihiin saan horey in badan oo kale u sheegay, kuwa hoos ku jiro kaleeto. haddii hadda marketkan soo noqdo bishan ama bishii xigta ay meel fiican uu macnaha sidii hore kusoo noqdo oo suuqu fiicnaado, kuwan ayaa ka fiicnaan doona bitcoin xagga degdeg lacagta loogu helayo. laakiin ayaguna ciladooda waxa weeye lacagtaad ku sameysay degdeg ayay kaaga lumaysaa oo hal mar ayay haddana minus geli karaan. laakiin hadda waxaan xooga in la saaro mudan in bitcoin kaliya xooga la saaraya mudan. laakiin idinkuna ka taxadara, baaritaankana sameeya idinka iskale maalgashigiina. wixii kaloo tusaale iyo fikrad ama su-aal qabtaan hoos kusoo qora. aad iyo aad ayaa mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.